السلام عليكم. صورka halkaa ku yaala bal ila eg maxaa ku muuqda waxaa ku muuqda oday gaboobay waa nin weyn oo daa waxaa ku muuqda nin la dulmiin u egay inuu miskiin yahay baaba suurtagal ah hasaate intaan ku sheegay ninkani waa ka dheeryahay ninkani waa nin lagu xukumay amaba lagu ogaaday amaba lagu fashiliyay fadeexadii ugu weynayd casrigan hadda ay noolahay arrin ceeb ah oo fadeexad ah oo in badan siyaasiyiinta caalamka dad badan saameyn doonta ayaa ninkan lagu soo ogay talo maxay tahay muuqaalkan ka bogan doonta wala waya muuqaalkan isaga waxaan kaga hadlay arrin xasaasi ah waa arrin runtii warbaahinta galbeedku in badan ay qarinayna hasaate hadda uu qaraxday ninkan sawirkiisa hadan mar labaad kugu soo celiyo magaciisa waxa loo yaqaanaa Jeffrey Epstein waana da'diisu 66 jir وانين أصل أهم معلنا وانين مريكنا معلم بوشغله وكسب بالعبي مدرب بو معلنها حسابته أدي أدقون أكسنة معلم ما كم ده أيام مد كم ده والد كي عروتي ودي جري أيام ويردي سو شركة ديسا قيبت حسابات لو شقيه حوجا بونك الشقة دي وكتشري نين آد بحون نقضي فرعون تطبطن بأمرك لا سوحول جري وحسابين جري شركة ده إلا معلتي تبقى أن وين وقاري إنه شغله وكفرستو شركات isaga u gaar ahna uu sameesto shirkadiisaasi waxay shirkad ku takhasustay bixinta iyo sameynta waxa weeye service-ka iyo adeegyada xisaabaadka ah iyo isla sidoo kale maalgelinta intaba way ka shaqeyn jirtay ninkani wuxuu ahaa nin very active ah oo aad iyo aad u soo jeeda ninkani inta waxa uu dheer dadka ugu caansan adduunka ayuu xiriir fiican u lahaa waxa la sheegaa dadka milyaneerada ah ee lacagta adduunku waxa weeye ugu lacagta badan leh marka ay rabaan inay la shuraakoobaan ama wax ku darsadaan 1 milyan lacag ka yar laguma shuraakoobi jirin yani wuxuu jiray dad 1 milyan lacag ka yar hayso yala tag shirkadeedan kugu maalgelin maayay ninkani markaa wuxuu ninka aad ku awood badan buu ninkani markii dambe lacagtiisa way tarantay heer sare way gaadhay ilaa uu gaadhay dad iyaga ugu qanisan magaalada uu degan yahay halka uu dhimatay halkan ninkani wuxuu iibsaday jasiirada isaga iska leh magaciisana ku taala isagana ka taliya madaxweynaha isaga hayna kama taliya waxa la liixo doon ku sameeyay ninkan wuxuu sameyn jiray wuxuu dadka adduunka ugu caansan intuu u yeero ayuu ku soo marti qaadi jiray jasiiradan iyada talo muxuu ku sameyn jiray halka uu dhimatay way jasiiradan waxa uu ku sameyn jiray in uu ku kireeyo hablaha waliba hablaha yaryar ee 10 jirka iyo wixii in yar ka sareeya ama ka hooseeya ayuu soo kaxaysan jiray dabadna dadka waaweyn odayaasha gaboobay iyo dadka lacagta leh ayaa halka hablaha yaryar kaga arisan jiray oo kaga dhamaysan jiray hablaha yaryar markuu yeedhayo $200 buu siin jiray sida sheegtay mid kamid ah victimskii dadkii soo dhibaateeyay habla yaro kala dad ii keentana lacag baan ku siinaya buu oran jiray oo dilaalnimo dabadeedna hablo yar oo lacag 200 la siiyay midba mid bay u keentay dabadeedna ninkii jasiiradiisa waxay ku camiratay hablo aad u yaryar oo hasaate si xun loo galo ragga waaweyn hablaha yaryar ay farxumayaan shirkadu waxay sidaa haataba waxay dadnaataba dadiyuga adduunka ugu caansan sida dadku aflaanta sameeya dadiyuga maal qabeenada shirkadaha waaweyn leh waxa la sheegay Bill Gates inuu ku jiro dadiyuga aqoon-yahanka ah ee jaamacadaha ka dhigay professorada ah sida odaygii haaliga ah ee maskaxdana ka naafadaha iyo aqliga jirkana ilaahay ka naafiyay loo oran jiray Stephen Hawking ee diinlaawaha ahaa waxa kamid ah ninkii caanka ah loo oran jiray Michael Jackson waxa kamid ah madaxweynihii hore Bill Clinton waxa kamid ah madaxweynihii kasii dhaweytoolay Donald Trump siyaasiyiin kale fara badan ayaa runtii ninkan macaamiil waaweyn u ahaa isaguna hablaha yaryar soo dabi jiray halkaana uu kan jiray ninkan isaga 2019 markay ahayd ayaa waa la qabtay waana lagu ogaaday inay yar baa fashilisay kadibna waxa la heshiis lagu gaaray isaga iyo intii awood lahayd ee maalqabeenadan ahayd siyaasiyiintan ahayd ka agdhoweyn in muddo yaro kooban uu xidhnaado iska dulqaato iyaguna mas'uul ka ahaadaan arrimihiisa oo dhan wixii file iyo malaf uu ka hayayna inuu qariyo oo aanu sheegin ilaa hadduu sheego way meesha waa lagu dhintay sida wuxuu heshiisku ahaadaba raggii garabkiisa ka baxeen iskuul markaa wuxuu bilaabay inuu ugu hanjabo faylalkii uu ka hayay waxa la sheegay nin kastoo qaniya lacag leh siyaasiya caan ah ilaa uu video uu ka duubo isagoo hablaha yar farxumaynaya oo la kharibaya ilaa uu ka duubo ka mutaga jirin markaa ninkan halka markaa tagay nin powerful ah
nin powerful nin allaaleyn kastoo isxarifiyo wuxuu leeyahay sii daaya soo dhiibi doontaa ama lacag inta la bixin doontaa ninkani sida ugu waday waa la xiray muddo yar markuu xidhnaana bil gudaheed waxaa loogu yimid maalmaha kamid isagoo ku dhex dhintay ama isdaldalay amaba dhintay labadaba waa la leeyahay xabsigii ku xidhnaa dabeedna halkaa waxaa la yidhi waxaa ku gabagabowday sheekadii iyada ahayd raggii xumaanta iyo faruhu ka yaalayna way iska nasteen wuxuu waqtigu socdoba muddo dheer kadib maxkamad dheer oo waalidiintii hablaha yaryar dhalay ay furteen ugu dambeyn sheekadii waxay kusoo gabagabowday in ninkii uu fashiliyo ama uu dhiibo fayl ay ku yaalaan dhammaan dadkii meesha macaamiisha u ahaa dhammaan dadkii hablaha yaryar xumayn jiray dhammaan dad ku wada eedaysan kufsiga iyo farxumaynta hablaha yaryar ee 10 jirka leeg ama in yar ka weyn ama in yar ka yar sheekadan waxay noqotay runtii sheeko aad iyo aad u yaab leh waxa ay saamaysay dhammaan wixii siyaasiyiina waxaana suurtagal maalmaha soo socda ee hadda imika muuqaalkan xilligaad ka daawanaysid in yar ka dambeeyo waxa suurtagal ah in dad badan ay soo baxaan in fadeexadaasi ay cid walba ay gaadho ayaa suurtagal ah sheekadan iyada runtii inaan war ahaan kugu soo tabiyo macno badan oo ku jirta ma jirto macnaha weyn wuxuu ku jiraa dhowr arrin oo muhiim ah kula wadaagi doono waa marka koobaad quraanka ilaahay wuxuu inoogu sheegay markaan doonno in tuulo ama magaalo aanu halaagno dadka maalqabeenka ah ee loo nimceeyey ayaanu amarnaa in ilaahay caabudaan rususha ay raacaan in ay ilaahay u hoggaansamaan fafasaquu fiihaa dabeedna faasiq iyo dad xadkii ka baxay bay noqdaan fadamarnaahum tadmiira dabeedna halkaas tuuladaas lagu burburiyaa aayaddani waxay noo sheegaysaa macno aad iyo aad u weyn macnaha ah in saamayn aad iyo aad u ballaaran ay ku leeyihin dadka intooda sare dadka hoose oo waxaad isweydiin kartaa haddii kuwii hore xumaadeen ama kuwii maalqabeenka ah xumaadeen kuwa hoose maxaa halaagaya waxa tuulada dhan loo halaagaya saamayntii kuwaasay leeyihiin waayo kaas kii ka hooseeyey ee faqiirka ah ama danyarta ama xaaladda dhexe ku jiray uu dayanaya role model loo geeyey sidaa awgeed casharka koobaad aynu ka baranaa waxa weeye in dadka maalqabeenka ah inta badan ay yihiin sababu halaakil in yihiin ummadaha sababta loo halaago xumaantay la imanayaan awgeed waa qodob kaloo muhiim oo kaba sii daran baa jira oo cashar kale ah dadka noocaas oo kale ah Stephen Hawking oo kale Bill Gates oo kale Donald Trump oo kale iyo qaar kale la mid ah fara badan oo ogeyn imika in badan oo kamid ah dadka role models bay ka dhigteen dad ay ku daydaan bay ka dhigteen dad tusaale noo show ah ay ka dhigteen sababtuna wax kale ma aha waa lacagta yar ee haystaan iyo awoodda adduunyo ee yahay gacantooda u soo geliyay waxaana dhacdadan iyadayna bartay in dadkaasi ay yihiin dad aan lagu dayikin runtii dadka ugu liitaan in badan oo kamid ah inay yihiin aynu halka iyada aynu ku aragnaa waxaan halkan isla sidoo kale aynu ka fahmaynaa in baraadhuhu in badan uu dadka u halaago bulshadana uu baabiyo baraadhaha iyo markay nimcadu iska ka agtaaltaalo marka aanay jirin waxa aad ka warwarsan tahay marka bariiskaaga iyo cuntadaada isdul saaran yihiin waxa koobaad qofku ka fikiraya waxay noqonaysaa marka sidii baahiyihiisa kale ee jinsiga uu qancin lahaa ogowna baahiyaha noocaas oo kale lagama dhargo baahiyaha noocaas oo kale ee xumaanta ah waxyaalaha qofka lagu imtixaamo waxaa ka mid ah inaanu ka dhargin marxalad bay u dhiibaysaa halka hoos ka soo bilaabmay hadhowna wuxuu arkaya isagoo halka ugu xun taagan sidaa awgeed dadkan maalqabeenka imika fadeexadan ay ku caddaatay ee la sheegay qaarna ay soo socdaan nimcadoodii faraha badneyd waxay keentay in xumaanta intaa la eg inay habla yaryar oo 8 jir iyo 7 jir inay la tuntaan kufsadaan wax ceebaanaani u arag intaa waxa ka daran hadhowna waxa suurtagal ah in ninka noocaas oo kale uu kaaga waramo xuquuqda dumarka xuquuqda caruurta xuquuqda dadka iyo wixii la mid ah meena la yaabay qodobka kale muhiimka isaguna wuxuu yahay baraadhuhu wuxuu keenay inuu qofku kibro isla sidoo kale uu duqyaan iyo xadgudub u sameeyo qofku markuu baraadho nimco halkii ugu sarreysay uu gaadho waxa adkaanaysa inuu wax ka qaato dadka mansilad hooseeya inta badan ambiyada iyo dadka wanaagsan ee fiican marnaba ma hadda maalqabeena sawir ninkii maalqabeenka ahay wax alla leh wuxuu ka qaadanayaa ma jirto qofka miskiinka ah hooseeya ee wanaag ee khayrka u sheegay sawgeed waxa suurtagal inuu gaalnimo ku dhinto in cinaadnimo ku dhinto in beenin ilaahay rasuulkiisa ah inuu ku dhinto ayaa suurtagal adduunka u fiirso inta adduunka ugu maalqabeensani waxay haystaan ma jirto waayo diintu way qabanaysaa xakamay ku noqonaysaa mana doonayo wax xakameynaya sidaa ogeed badankoodu gaala yihiin kuna dhintaan lagu soo saari doonaan maalinta qiyaamaha waxaan kusoo gabagabeynayaa taariikhdeena islaamka ee dahabiga ah markaad sidaa aad u eegto bilowgin dee taariikhdii lasoo saaray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaa hadda oo aynu nool nahay
waxaad arkaysaa mar kastoo xaaladda muslimiintu ay gaadho nolosha halkii ugu sarreysay ama tarafka waxa loo yaqaano waa badhaadha halkii ugu sarreysay waa mar kastoo ilbaxnimadooda iyo horumarkooda hoos u dhaco waxaynu arkaynaa dhaqaale ahaan markay noqotana hoos bay u dhacayaan oo dadkii markay noqdaan dad raaxa jecel ah way yarta inay wax soo saaraan oo wax qabsadaan intaa waxaa dheer dagaalkoodii difaacii jihaadka ee muslimiintu qabanayeenna runtii wuu baaba'ayaa markay noqdaan dad badhaadho jecel waayo qofka jecel raaxadu u badheeri maayo inuu dagaal meel lagu dhimanayo oo lagu dhibtoonayo inuu tago sidaa awgeed mar walo waxaa daaladda iyo ilbaxnimada islaamku ay gaadho badhaadhaha hoos bay soo dhacdaa horena waxaa loo yidhi xaaladaha adag waxay dhaliyaan ama ay keenaan rag adag oo wanaagsan bay keenaan raggaa wanaagsanina waxay dhaliyaan oo ay sameeyaan xaalado wanaagsan ay dalkooda ay horseedaan iyo badhaadh ay horseedaan badhaadhuhuna wuxuu sameeyaa ugu dambeyn rag jilicsan oo aan adduunna ku wanaagsanayn aakhirana ku fiicnayn nin yahow waxaan kugula talinayaa inta aad dadaali karto inta aad wax halgami karto ku dadaal inaad wax qabsato in ummadaada aad wax u qabato inaad ummadaada aad u halganto iska jir in badhaadhaha xataa haddii qoyskaaga dadka kugu hareeraysan dad nimcaysan yihiin iska ilaali badhaadho waayo badhaadhuhu waa lafjabka ugu weyn ee dadka iyo ragga iyo bulshooyinka intaba ku dhaca. Asalaamu calaykum.